بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. walaalaha Soomaaliyeed meelaad joogtaan ba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idinku ammaan yeelo. Ciddii dhibandhibka Allah ka qaado, ciddii danle Allah u oofiyo, inta bahan Allah deeqo, inta bugta Allah bogsiyo, intii dhimatay Allah u naxariisto, waalidiinteena Allah u naxariisto, annagana Allah nooga daba naxariisto. dalkeeni Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha inoo badbaadiyo. maanta kaftanka baraha bulshada waxaa ah 16 iyo eber. waxaan maqli jiray nin ganacsada ayaa wuxuu qaaday hargo Dubai baa loo ganacsi tagi jiray, markaasuu hargihii buu aad ugu khasaare baan ba ka raacday. markaasaa waxaa la yidhi salaadii baa la galay. salaadii iyadoo lagu jiro samica allahu liman xamida meeshii laga oran lahaa, markii rukuucdii laga soo kacayo imaamkii samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamda meeshuu ka dhihi lahaa buu wuxuu yidhi waa la yidhi ilaahu hargihii maxaa naga qabsaday. hadda waxay taagan tahay ilaahu ciyaartii maxaa naga qabsaday. warse waxu jiraan aad baan uga xumaaday. 16 eber waa wareey. 16 iyo eber ma basketball ba soccerka 4 iyo 5 iyo marka bah laga dhigo ba 6 iyo 7 iyo laga dhaliya. 16 waxay la tahay waa nin walba oo 12kii macaaburtiyeerigu ku jiray kuwii xaga ka soo jeeday kulligooda dhaliyeen nin iyo gool, markaasay dheeraad ku darsadeen. waana ku dhacday arrintaasi. marka maxaa khaldan? bal horta dib ha loo daraaseeyo. dhalinyaradu chemistry wax la yiraahdo iyo wada shaqayn ma leeyihiin? dad isla tababartay ma yihiin? ciyaartooy lagu soo xulay ciyaar ma yihiin? mise waxaa lagu soo xulay arrimo kale? hadda ka hor baan xasuustaa bari hore ahayd caruurtayda gabar orod soo gashay oo orod lagu keenay dalka Ingiriiska inay ka tartanto Soomaaliya iyadoo matalaysa. hees wadaniyana ka qaaday meesha. caruurtaydu heestaa wadaniga la qabsay dhulkaygiyo kii laygu dhalayo ku dhaqaaq bartow kaa dhoofi maayo dhul kaloo qalaad ku aan dhaafsan maayo inta aanan dhiman bay kaa dhexgelin dhaar waxaan ku maraya inaan kuu dhintayo kaa dhiciyo cadowga. heestaasay qaaday. marka aad baan uga helnay annagoo marka sugayno subax habeenkii oo dhan soo jeednay. xilligu waa kala duwan yahay oo yani lagu kallahay TV-ga lagu kallahay baa orodkii bilowday. show gabar weligeed ba oroday maaha. yani waxaana la ordayaa orod dheer. goortii ciyaartii dhammaatay oo dadkii oo dhan yimaadeen oo la dabaaldegay oo dadkii ay masawira layska qaadayo bay timi iyadoo aad moodid in balaaga ku dhacday. haddii aan sii baarnay waxaa la yidhi gabadhu tahriib bay u socotay, meeshii bayna iska dhiibtaa li. marka dhalinyaradu iyaguna Marookay u socdeen inay iska dhiibaan. bal dadka hala baaro, dhalinyarada hala baaro, hala xulo dad aqoon leh oo banooniga aqoon u leh oo ciyaarta aqoon u leh. hala xulo oo halaga daayo qaybtii xumayd ba xataa waxay maraysaa saan u malaynayo. wax kasta waxaa lagu qaybinayaa waxaan la garanayay qabiil iyo 4.5 iyo gobol. waxaa ku xigtay madaxweynaheeni aaway, where is my president? waxaa soo xasuustay Uhuru oo dhowr sano ka hor intuu dhoofay oo China aaday la waayay oo usbuuc dhan 8 cisho iyadoo aan war laga hayn ay baafinayaan baraha bulshada Kenya isqabsatay where is my president. hadda madaxweyne xasan sheekh wuxuu noo sheegay 2 bari inuu safarkiisu yahay baan loo sheegay. 2dii bari waa dhamaatay. madaxweyne ma hayno, ma aragno, meelaan kala socono ma naqaan. filla Soomaaliya waxaan ka rabnaa marka warbixinta inay si joogto ah noogu soo daayaan. qodobkaasna waa qodobkayga labaad. qodobka saddexaad waxaa filla Soomaaliya afhayeenka madaxtooyada ku ammaanaya jawaabtii uu ka bixiyey videogii Jamaal Cusmaan iyo Channel 4. aad baan ugu ammaanaya. propagando al-shabaab bay ahayd. hadduusan Jamaal Cusmaan al-shabaab ahayn wuxuu u shaqaynayay ciidanka ajnabiga ah inuu dalka joogo. dadka afkaartaas wata ayuu u shaqaynayay. ra'yigaas baa la faafinayay. waxaa la yidhi oo lagu khatimay haddaad dhegaysatay waraysiga sidii al-shabaab loo buunbuuninayay dowladnimay rabaan inay dalka qabsadaan. waraysiyo kale oo bixiyaan dhegaystay. kulligood waa propagando. la leeyahay al-shabaab waxaa ina ka hor taagan dowladnimadiina ka hor taagan
dalkoo dhan inay ka taliyaan ka hor taagan hadda amisom iyo atmis baa ka hor taagan. waa fake news, waa propagando. amisom al-shabaab dagaal lama galaan. dadka ay islaayaan oo everyday la dagaalamo dhulka la sima baxda ugu dambeysay bariire iyo awdeegle ay ka mid tahay, gobolkaas hirshabeelle oo dhan ay ka mid tahay, galmudug oo dhan ka sifeeyey ilaa meelo yaryar mooye, waa ciidanka SNA Somali National Army iyo danab, haramcad, gorgor, danab, nisa. ciidanka way ciidanka casharada aad adag u dhiga. marka inuu ku tilmaamay inay ahayd propagando al-shabaab lagu xayeysiinayo, iyo inuu yiri anagu argagixiso heshiis iyo wada hadal midna la geli mayno, oo ahaa message-kii kale uu waday Jamaal Cusmaan. 3 qodob baa ugu muhiimsanaa Jamaal Cusmaan: in argagixisadu ay tahay xoog jira oo aan la qarin karin, dalka 33% inay iyagu haystaan, ma garanaysaa yacni propaganda aad u tiro badan, inay yihiin dad isku kalsoon oo awood leh oo siyaasiyiina oo iska ilaaliya meelaha ceebuhu uga imaanayaan, dad dhaqan leh oo diin leh oo ma garanaysaa barwaaqa haysta oo dadka dhaqaaleeya oo dadku jecel yahay, dad diyaaro inay dowlad noqdaan oo dalka ay xukumaan oo isbitaallo iyo iskoollo iyo dhisaya. ma arkaysaa sababta keliya oo aysan u qabsan dalku hadda aysan u xukuminna ay tahay inay waiting game ku jiraan. arrintaa inuu propaganda ku tilmaamay, villa soomaaliyana ay arrintaas ka soo horjeensatay, aad baan ugu ammaanaya afhayeenka. halkaa ka wad qodobka iigu xiga, guddiga dastuurka. guddiga dastuurka anigu waa ka soo horjeedaa, laakiin anigu sida looga soo horjeedo ugama soo horjeedo. reer hebel baa ka maqan iyo gobol hebel baa ka maqan iyo qabiil hebel baa ka maqan, waxaasi naf ma leh. waxaan uga soo horjeedaa 5 nin oo qaarkood ay ahaayeen dagaal oogayaal, qaarkood aysan shuqul ku lahayn ma garanaysaa sharci iyo dastuur. maxay macno keenaysaa magacaabistoodu? waxaa loo baahan yahay dad aqoon u leh. baarlamaanka inta la dhex galo, inta sharci yaqaanka ah horta bal hala soo xulo. hadday 3, 5, 4 isku reera noqdaan oo walaala ah, iyaga ha loo diro, dad aqoon leh ha loo diro. waa qodobka kale. anigu dastuurkan aynu haysano in la dhammaystiro ma aaminsani. marar badan baan sheegay dastuur baan leenahay, Soomaaliya dastuur bay leedahay ay iyadu qoratay oo dadkeedii qortay oo nimankii aabbayaasha u ahaa xornimada Soomaaliyeed ay qoreen, oo lagu dhisay qab iyo qarannimo. dastuurkaas waxaa lagu baasiyey overwhelming majority. wadanka oo dhan baa referendum laga qaaday min raas casayr ilaa raas kamboni. 1961 1962na waa la meelmariyey. dastuurkaasi wuu jiraa. Soomaaliya dastuur la-aan maaha. dastuurkaas ha laynoo soo qaado. haddii wax laga bedelayo isaga ha la bedelo, haddii wax lagu darayo isaga ha lagu daro. midkan 4.5ka ku dhisan iyo maamul goboleedyada kulligood Ethiopia xuduuda la leh, baddana xuduuda la leh. maamul goboleed kasta Somaliland ka bilow, Ethiopia xuduud la leedahay, baddana xuduud bay la leedahay. Puntland ku xiji, Ethiopia xuduud la leedahay, baddana xuduud bay la leedahay. galmudug ku xiji, Ethiopia xuduud la leedahay, baddana xuduud bay la leedahay. hirshabeelle ku xiji, Ethiopia xuduud la leedahay, baddana xuduud bay la leedahay. koonfur galbeed baddana xuduud bay la leedahay, Ethiopiana xuduud bay la leedahay. Jubbaland Ethiopiana xuduud bay la leedahay, baddana xuduud bay la leedahay. ma aha wax iska yimi oo sudfo ah oo accident u dhacay. waxaa loogu talagalay in Ethiopia ay yeelato meel ay iyadu ka maamulato dalka Soomaaliya. sidaasayna ahaan jirtay arrintu. marka inta laga baxayo maamul goboleedyadaas khariban, inta laga baxayo oo dowladnimo la aadayo, shuruudaha loo baahan yahay in la hirgeliyo waxaa ka mid a in dastuurkan qashinka ah oo lasoo qoray la tuuro. haddii xataa la rabo eber ha laga bilaaba mid kale, laakiin wax Soomaaliya fikirtay, Soomaaliyana qoratay, iyaguna ay leeyihiin kuna dhisan Soomaali danteed waa inuu noqdaa. 4.5 maaha, dastuur maaha, waa qabyaalad. adduunka racism baa loo yaqaan iyo discrimination. cid soo qaadi kartaa ma jirto. cunsuriyad weeye. marka dastuur cunsuriyad ku dhisan iyo maamullo qabyaalad ku dhisan iyo qabiil,
oo cunsuriyad ku dhisan oo arrin ajnabi u shaqaynaya looma baahna soomaaliya in loo qurqurxiyo oo loo mariyo dhalo intaad khamro ku shubto haddaad tiraahdo waa malab hadde markii la damcay la dhadhamiyo malab la dhadhaminmaya kharaar iyo qurun iyo khamri baa la dhadhaminaya magaca rabta waa u bixin kartaa dastuur laakiin dastuur maaha qashin wey waa wax saa isaga wada hor imaanaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waa isku haystaan shaqadii wasiiradu wasaarad walba wasaaradda kale overlapping ku samaynaysa oo isku haystaa shaqadii wax la garanaya maaha wax loogu talagalay in dowlad lagu dhisa maaha marka in la tuuro wey qodobka igu xiga puntland 3 bilood mushaar lama bixin haddee ninkii siciid khasaare ahaa lacagtiina waa qaatay xamar bullaad xildhibaanadiina waa ka haysta xamar bullaad yaa la xisaabtamaya yaa oranaya war lacagtii aawe lacagtii waa baxday waxba kuma soo helin ra-iisul wasaarena waa waayey intuu isku dayo aad isugu dayo weliba ayuu waayey madaxweynahana waa waayey ballantii ay lahaayeen mucaaradkuna waa looga baxay heshiisku waxaa ninka u sarreeya in laysugu tago oo la raaco meeshii dhexdeedii baa looga baxay oo la yiri ku siin mayna adiga aad baan ugu faraxsanahay inay arrintaasaa u dhacday bal maanta xasan ninka la yiraahdo siciidani uu madaxweyne inuu yahay bal ka fikir adigu subxaan allah ilaahay baa ina badbaadiyey marka arrintaa iyada ahi puntland 3 bilood mushaar lama bixin lacagtii qaybna isaga qaatay waxna kuwii ka hooseeyaa boobay oo maxay u boobayaan haddii geela duqdiisu durduriso aarankiisa maxaa moodaa madaxweynuhu wuxuu ka bilaabay covid-19 lacagteedii inuu dhaco waxaa ku xigtay wasaaraddii caafimaadku inay noqoto hoobaye hiddow inay marayso wasiirka caafimaadku intuu soo fariisto inuu yiraahdo askarigii baa boobay buskudkii qisadaas qiso la yaab leeyahay daawooyinkii bay dhaceen daawooyinka markay dhaceen baa hay-addii daawooyinka keentay daawooyin loogu talagalay emergencyga xaaladaha degdega ah oo khatarta ah iyo caruurta iyo haweenka iyo dadka dhibaataysan iyo nafaqada dadka nafaqa daradu hayso ayaa inta la boobay la iibsaday hay-addii baa baaritaan samaysay waxay soo ogaatay wixiiba in la qaatay oo la gatay isbitaaladii loogu talagalay gaalkacyo iyo qardho iyo boosaaso iyo laascaan meelihii loogu talagalay oo dhan cerigaab kulli maxaan ku idhahdaa baran iyo kulli lama geyn gobolada oo dhan lama geyn markay soo ogaadeen bay wasaaradda caafimaadka kusoo noqdeen waxaa la baaray CCTV-gii kaamarooyinkii baa la baaray saa waxaaba ka soo baxay alaab kale dhiman buskud raranaya baabuur dhan oo buskud oo la rarayo wasiirka caafimaadku intuu halkaa soo fariisto yiri tuugo waa dhacdaa maxaa ka macnaa waa la isxadaaya nin tuugo askari u ahaa ma askari og inay meesha kaamaro ku jirto oo keligiis ah iyo labo iyo iyagoo ah bay raran karaan 300 oo kartoon bay dhaceen buu yiri bay waxaasoo dhan raran karaan marka waxa weeye wasaaraddu iyadaa tuuga ah maxaa tuuganimada u baneeyey dowladda ka sarreysaa tuuga ah tuuganimadu markay kor ka timaado hoosna waa gaaraysaa musuqu meesha uu ka bilowdo kuna dhammaado waa madaxweynaha haddii madaxweynuhu musuqa la diriro inta ka hooseysaana waa ka baqaysaa haddii madaxweynuhu musuq ku caanbaxo oo ku suntanaado oo isaga sumad ay u ahaato inta ka hooseysaana musuq bay iyaguna caan ku noqonayaan marka maxay ku sameeyeen baa la yiri qiso nin wariye ah oo ka qoray baan daawaday ka sameeyay baan daawaday wuxuu leeyahay waxay ku sameeyeen extortion markay ogaadeen in daawadoodii la dhacay oo CCTV-gi laga arkay bay waxay dhaheen waa idin yani riboodkay soo qoreen uu been noqday oo ahaa isbitaaladan geynay yaa waxay ku yiraahdeen dib baanu idinku noqonayna markaasaa la heshiiyey extortion baa la yidhahda faraanka ah ayaa hadda ila heshiiyey horaan idinku sheegay UN-ta iyo hay-adaha khayraadka ama khayriga ahi waa the most corrupted organization on the face of earth wax aan xumaanta Soomaali ahayn uma joogaan dalka haddaad u qabtaan waxtar idinla joogaan waxtar ulama joogaan baabi'inta iyo magaranaysaa dabamaryeynta iyo tuugada iyo in dadka akhlaaqdooda lagu ciyaaro baa ugu liidata ugu yar waxay samaynayaan wasaaraddii caafimaadka iyo hay-addii waxay ku heshiiyeen inay wixii intay kala jabsadaan aamus hash la yiraahdo oo saa lagu kala tago waa wixii Matt Bryden uu ku samayn jiray siyaasiyiinta Soomaaliyeed intuu fara ka qabto markaa ka shaqaysan jiray
welina wuu wadaa ciddii uu fara ka qabto waa maamushaa isagaa maamulanaya qadiyadaas. marka waxaan leenahay puntland 3 sano ka hor baanu idiin sheegnay Siciid Dani isagaa idiin sheegay markii dambe oo igu waafaqay idinka idinma shaqeeyay xamar buu u socdaa jaranjaruna idinka dhigtay kulligiin isagaa jaranjaro u tihiin. haddana wuxuu soo noqday isagiioo caraysan oo xanuunsan oo dhibaataysan oo qalbiyan u burburay oo og inaan meesha cidi uga horeyn isaga rabta oo wanaag iyo sumcad uusan ku lahayn. marka inuu wax sii yeelo sii baabi'iyo sanadkaa iyo markaa haray mooye waxtar inuu u qabto laga sugi maayo. waxaa la mida oo la eedaysan inta la shaqaysa oo aaranjaan ay ugu horeeyaan ummaddaas reer puntland hadday wax maqlaa ku jiraan waxaa leeyahy nimankaas ninkaas iyo inta ku hareeraysan intaas ha laga ilaaliyo siyaasadda maamulka ha laga ilaaliyo hormuud inay ummadda u noqdaan ha laga ilaaliyo wax aan bi'in ahayn haddaa ka sugtaan hadda idinkaas yaqaan waa dalba u yaa kule. qodobka igu dambeeya laascaanood dadkii waa la laynaya waxgaradkii madax jabis baa ku socda. markaan dib u raacno taariikhda madax jabiskaasi wuxuu bilowday markii maamulka somalilan ay la wareegtay laascaanood ilaa ay haddeerna ma istaagin. waxa ugu badan oo dhintaana waa ciddii ka hadasha xataa qabaa'il baa la tarxiilay oo laga saaray oo la yidhi iyagaa dadka laaya weli waa socotaa. nin baa maalin dhaweed hadlay wuxuu somalilan ku eedeeyey inay dilka iyadu ka dambayso. ninkii waa la dilay habeen horaa la dilay. waxaa ka horreeyey sheekh cabdinaasir xaaji axmed raxmatullaahi caleyhi ninkaasi si fiican oo babliga uga hadlay somalilan baa dadka laysa buu yidhi loogamana horreyn haddii ay iyadu dadka dilka ka daysana waa laga daynaya. hargeysa laguma laayo dadka burcana laguma laayo berberana laguma laayo. marka shabaabku mareer laascaanood kaliya yaqaanin shabaab maaha dowladdaa ka mas-uula waxaan socda oo dilka ah. waxaan idiin sheegayaa dhaqanka imaaraadku leeyahay waa noocaas. imaaraadku dal alla dalkay tagaan waxay kala diriraan maskaxda qof alla qofkii waxgarada waa la dilaya. haddii meel imaaraadku lug ku leeyahay meeshaa waxaa ka bilaabanaysa dilka dadka aqoon-yahanka ah dadka waxgaradka ah dadka cuqaasha ah dadka maya oran kara ilaa ay isugu soo harto maxas. reer laascaanood waxaan leeyahay ilaa imisaa sugaysaan? haddii aad og tihiin qofkii hadlaaba inuu dhimanayo marka ma iska sugaysaan intaa dhimanaysaan? waxaan soo xasuustay qiso xilligii tataarka yaa waxaa dhacday baa layidhi muslimiinta waxaa jabtay haymanadoodii yacni gobanimadii baa dhimatay. waxay gaareen heer gabar intay 20 nin 40 nin qol ku xirato iyadoo seef wadata ay tiraado qof iigu imaada waa idin dilayaa. markaasuu imaanayaa mid walba sulku soo dhiganaya kow waa dilaysaa. mar baxaa dhacaysay baa layidhi inta birtu ka jabto oo seeftu ka kala jabto ama ka qallocsanto ama ka afbeesho inay tiraahdo isuga waa idiin soo noqonayaa seef baan raadsanayaa. meeshay ku sugayaan. reer laascaanood sifadaasa ka muuqata. waxaa jirtay xilligaa inta magaalo lasoo kordego in la yidhaahdo ninka boqorkaa warqad inta loo diro soo gurguuro halkan gurguurasho ku imo mana istaagi kartid intaa jidka kusoo jirtid markaa ii timaadidna waa ku dilaya. oo uu markaas intuu bismillahi raxmaan raxiim yidhahdo uu gurguurashadii bilaabo. war waxaa dhimatay haymanadii dadkii waa la ugaarsanayaa waxgaradka ahaa. intiina isugu soo hartay laascaanood haddaydinaan wax iska qaban karin oo wax iska celin karin dee allah idiin naxariisto. intaa ka badan anigu idinma oran karo. ilaahay ha idiin naxariisto. dilkan waxaa ka dambeeya oo mas-uulka ah oo ku eedaysan haddaysan iyagu qorshaynayn waxaa ku eedaysan cidda meesha maamulka ka ah. ha laga daaya dadka dilka waxgaradka oo waxgalka ah. ummad soomaaliyeed oo dhan qof wax ugu fadhiyey baa la dilaya. dadka beegsiga ha laga daayo waxgaradka ah oo wax ku oolka ah. birimageydaa la yidhaahda qofka waxgaradka ahi 1000 qof oo dhalataa hal qof waxgarad ka noqda. haddii marka la ugaarsado 999 wax magarad ah baa ka dambeeya. halkii qof oo la dilaba 999 wax magarad ah ama makas ah baa ka dambaysa oo ka haraysa. marka dadka sidaa loo dhaamo hana laga daayo. arrintaana waa in laga dhiidhiyaa. ciidamadooda ha kala baxeen magaalada. hadday iyagu ka tagaan maadaama maamulkoodii uu fashilmay hadday iyagu ka tagaan oo ay isugu qabaa'ilka kalena bal ha laga saaro. haddii qabiilkii la saaray oo reer south west ay musiibadu ahayd maxay dhimashadii wali u socotaa? kuwa kalena bal ha la saaro aan ogaano markaa cidda wax laynaysa ha la ogaado. ma jirto wax la yidhahda al-shabaab oo laascaanood dadka ku laynaya.
waxaa dadka wax ku laynay meesha ku laynaya waa arrin qorshaysan oo uu shiikhii raxmatullaahi calayhi uu si cad u sheegay. ninkaa waxaan ku aqaanay nin caqli badan oo firaaso leh oo geesiyo ahaa, waana u dhintay, iyadiiba u dhintay, intaasu u go'ay raxmatullaahi calayh. mana aaminsan anigu in isaga xataa shabaab dileen, maxaa yeelay meesha lagu dilay jubbaland bay ahayd, kismaayaa lagu dhex dilay. dowladda dhan oo meeshaa ka jirtaa kama ay tacsiyeen, mana ka hadlin, mana soo qaadin kelmaddiisa. marka waay maxay uga hadli weyday? ma colaad baa ka dhexaysay cabdinaasir iyo raxmatullaahi caleyh iyo madoobe? maxay tahay mushkilada? ma garan karno. waxaa noo muuqata un wax khaldan arrintaas somalilan. runtii waa musiibo. qodobka labaad oo ii raaca isla somalilan, waxaan arkayaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo le waxaan aaminsannahay kuna jooga fadhigana ku fadhiya waxaan aaminsannahay soomaali weyn, oo haddana u ololeynaya somalilan, oo somalilan waa dal madax bannaan iyo wax noocaas akhriyaya. dadkaa kala kaxaynina. haddaydinaan aaminsanayn baarlamaankaas oo soomaali oo dhan loogu fadhiyo, waxaa ku xigaysaa dee waa inaad kaga tagtaan hadaydan aaminsanayn. laakiin haddii aad meesha ku fadhidaan baarlamaanka xildhibaan soomaaliyeed, soomaalinimo ka hadla iyo meel kore, hoos iyo qabiil ha aadinina iyo waxaan naf lahayn. waxaan maqlayaa oo warar igu soo gaaraya madaxweyne xasan sheikh inuu ogolaaday in imaaraadka lagu tago basaboor somalilan. xasan sheikh ha sugo puntland basaboor ay leedahay, ha sugo mid jubbaland ay leedahay, labadaasa ugu horeyn doona, kuwo kalena waa raaci doonaan. ha sugo haddii ay run tahay arrintaasi. ay wish inaysan run ahayn, ilaahay waxaan ka baryaa inay been tahay. anigu lama joogin, warna ma hayo, xogtaasna kama helin isaga, suuqan ka helay. laakiin hadday run tahay, hadda ha ogaado dalkii waa burburay, gacantiisuna ku burburay. soomaaliyana waa kala dhaqaaqday, duweylaad yar yar bay noqonaysaa. axmed madoobihii lahaa shalay safaarad baan kenya ka furanaya baad u bilowday baasaboorro kale in lagu aadi karo waddamo kale. muxuu sugayaa marka? baasaboor iyo calan iyo kulli waa xiranayaa, xuduuddiisana waa xiranayaa. ama kenyu ka mid noqonayaa ama dowlad gaaru noqonayaa. puntlandna waaba kuwii intaas dowladdii hore ku handadayey nuclear option wax la yirahdaan isticmaalaynaa, iyo magaranaysaa maxaa la oran jiray confederation waa dalal kale madax bannaan oo sida neto oo kale ay ka dhaxayso wada shaqayn. marka ilaahay waxaa ka baryaya been tahay. waxaa la mida gedo waa dhul barwaaqa, aad barwaaqo ah. sababta loo duqaynayo oo dagaalka iyo colaadda iyo looga wado oo loo diiday inay degto waa webigaa aragteen oo sida baashaalka u dhex mara, buurdhuuba ka bilow ilaa doolow socda, oo ilaa etoobiya uu ka galo, saa u dhex mara oo ku laalaabta. barwaaqada adduunka laga samayn karaa. waxaa loo burburinayaa oo loola dagaalamayaa oo loo diidan yahay waa inay wax soo saar yeelato. oo soomaaliya waxaa lagala dirinayaa waa wax soo saarka. waxaa la rabaa inay deeq bini aadan iyo gaajo iyo deeq bini aadan ku noolaato, gaajo iyo fakri iyo abaarna loo muujiyo inay tahay meeshu. waana dalka ugu barwaaqa sooransan caalamka. laakiin dad buu rabaa. waad garanaysaan barnaamijkii la dhihi jiray biyo sacbadaada laga dhargaayo iskaa wax u qabso. soomaaliya mucjizu ka dhigay, mucjizo, ilaa ay noqotay wadamada ugu dhaqaalaha badan adduunka. waxaa la filayay 2000 in ay soomaaliya noqoto wadan iskaga filan dhanka dhaqaalaha. laakiin nasiib darro waa la burburiyey iyadoo taa la diidan yahay. waxaa loo isticmaalay IMF iyo wax lamida. haddana iyagii baa lagu nool yahay oo dalkaba gacanta ku haya. marka waa dalba uyaa ku leh. si guud ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa iftiin baa baxaya. soomaalinimadu way soo noqonaysaa insha allahu tacaala. dalku waa ka soo baxaya waxa uu ku jiro, waa soo kabanaya. dhibkii uu ku dhacay iyo mugdigii uu soo maray, dalku wuxuu u egyahay mid ka soo baxaya oo ka soo kabanaya. ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala kabashadaas inuusan naga joojin. waxaan ilaahay ka baryaa ummaddu inay fahanto cadowga ay leedahay oo koowaad waa al-shabaab. cadowga labaad oo ay leedahay waa musuq maasuq. midka saddexaad oo ay leedahayna waa beesha caalamka iyo gurmadka UN-ta. beeraha lagula diriraa, wax soo saarka lagu baaba'shaa. markii moos dadka usoo baxo moos baa loo keenay, galley baa cuntadii soo baxday baa la keenayaa si loo baabi'iyo beeralayda oo loo niyad jabiyo. iyaga lagama gato, WFP kama gadato iyaga.
iyaga kama gadato dalalkooday kasoo gadataa cunto dhacday oo qashinay keentaa dalkooday kasoo gadataa beeralaydooda loogu daneeyaa kumanaan kun oo qof baa ka shaqeeya transportationkooda lasoo mariya marka lagu yidhahda 1 milyan baa lagu siiyey 99% lacagtaasi dalkii yiri waa bixiyey bay dib ugu laabataa marka laga gadanaya beeraha cuntada 3 laab baa loogu dhuftaa magaalada haddii kiishku ka joogo $100 $300 baa laga siiyaa beeralayda maxaa yeelay lacagtaas dad kala lagu magacaabay oo been ay tahay dhaqaale la rabo in la geliyo weeye beerahooda kadib cuntadaas lasoo raray oo lasoo qaaday iyagaa diyaaradahooda iyo maraakiibtooda iyo baabuurtooda kusoo qaada hal shilin Soomaali kama galo hadday marka ay wax garan lahaayeen oo wax fahmi lahaayeen al-shabaabkana way iska dhicin lahaayeen musuqana way iska dayn lahaayeen khayraadka iyo barwaaqada ay leeyihiin bay taageeri lahaayeen waxay ka mamnuuci lahaayeen WFP hadday lacag wadato inay meel kale kaga soo gadato cuntada waxay dhihi lahaayeen haddaa cunto bixinaysaan iyo haddaa cunto keenaysaan ka gata beeralayda hadday wax garanayaan saasay oran lahaayeen laakiin nasiib darro horgal waxaa inoo noqday inta dadka ugu liidata oo ugu garashada xun oo jeebkooda keliya u jeeda siyaasadda ka muufaysata aan dadka inay u shaqeeyaan uguna shaqeeyaan aan aaminsanayn fahamsanayna laakiin waa ka baxaynaa dad badan baa hurdada ka kacay dhalinyaradii waa feejigan yihiin indhuhu waa furan yihiin ilaahay ummadda wuxuu siiyey waxa la yidhaha social media beenta tirada badan iyo ciyaar suuqnimada iyo iskaga jirto sida gabdhahan hadda TikTok galayoo waasheen yaaba u baktiyeysaa yani mucjizo waxaa leedahay war dadku masaanay ahaayeen marka intaa laga tago yani faa'iido badan baa lagu qabaa xog badan baa la helaa warkii baa la ogaanayaa waxba qarsoomi mayaan banaankaa la soo dhigaya marka arrintaasi waxay ku tahay bareeshar iyo culays siyaasiyiintii ama danaysiga ama dabarlifnimada u yaqaanay siyaasadda khayr badan baa idin rajeynaya insha allahu tacaala waa ka baxaynaa say waxaa la yiri arag xun tahay uma allalaha insha allah waynu ka dabaalaneynaa wax badan baa inoo qabsoomay ilaahay waxaan ka rajaynayaa dowladda iyo dowladnimadaba inuu inoo hagaajiyo oo kor inoo ku qaado oo ay ku guulaystaan shaqada ay hayaan si aan kulligeen ugu wada guulaysano wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu